waxaan oranayaa ilaahow aqoonna ha nagu cadaabin eexna ha nooga tegin saaxiibkay Cumar Jaamac doodiisu may qancin laba qodob hadduu soo cadeeyana oo ay caddahay aniguna la xogogaal baanahay mid wal cadeyn karaya aniguna principally waan diidanahay taa midna lama cadeyn karo ee waa huuha suuqan laga shubo Muuse Bixaal lacag ku iibsanayo malaayiin ku bixinaya food war lacagta jeebkiisa ka shaadi uma soo baxdo ee orta lacag iyada ha ka baqanina mid baan se diidanahay waxa la yiraahdaa iskuul meel lama wada joogto warna isba seegana tan uu qabyaalada u sheegayo waxaan qirayaa inay wax ka jiraan niman la yiri berberay ka soo baxeen oo xisbiga u cudbay ka soo baxeen oo waa saddex iyo nin Hargeysa ka soo baxay soo afar maaha afartaasiba u cudbay ka soo baxeen waxa la igu leeyahay de waynu arkiyeen farta loogu yeedho waxay soo niman reer hebel ma tiidin war xaqan soo mara nimankaasi markii hore kulmiye inay iska soo sharaxaan waa loo diiday ucud baa banaanka ka qaatay oo soo saaray hadday taasi jirto de qiyamka kuwaas inaan inta kale ee sababaha uu sheegayay xildhibaan guruji ila meesha waa siyaasad waxba la kala xadxadayaa de taa kale ee siyaasadda hore waa wax caadi ah oo waana golahay laakiin taa inta gaarka ah saamaysa waliba waxaan ka baqayaa inay keento taas ragga laba xiiniya taabtay markaad intaada reer hebel xaqan soo mariso in kuwa reer hebel xaqan ku jiraan deelaan daarna xaqan aanu marnay